الله وبركاته. سيلينديا قارد لواي sanadku markuu ahaa 2017 ayaa cilmi baarayaal ka socda kulliyadda sayniska ee GNS ee ku taala dalka New Zealand waxay cadeeyeen inay jidho qaarad sideedaad oo dunida ka maqan. Cilmi baarayaashaas waxay khariidadaas u sawireen qaab aan hore loo arag. Cilmi baarayaashaas waxay abuureen khariidadaha si ay uga warbixiyaan ama sawir sax ah oo dhameystiran uga siiyaan khariidada iyagoo isticmaalaya cilmiga juqraafiga iyadoo ay ku lamaan tahay oo kale tiknoolajiyad. Haddaba waxay qiyaastii u dhiganta 2 milyan iyo 2 mayl oo jibaaran gaar ahaan hadda afka qalaad u bedelo waa 5 milyan oo kiiloomitir oo dhawal una dhiganta kala bar cabirka Australia laakiin kaliya qaaradu 6% ayay ka sareysaa heerka badda. Qaybtani waxay ku taalaa jasiiradaha waqooyi iyo koonfurta New Zealand iyo New Caledonia inta soo hartayna waa biyo galeen taas oo adkeynaysa in sahal lagu sameeyo qaaradan Sealandia. Haddaba si aad si fiican uga fahanto qaaradan qalqalsan Mortimer iyo kooxdiisu waxay sawireen labada dhinacba Sealandia iyo sagxadda badda ku wareegsan iyadoo ay si qoto dheer u muujinayso sida buuraha qaaradaha oo ay u dulmarayaan biyaha dushiisa. Khariidadu sidoo kale waxay muujinaysaa khadadka xeebta iyo xuduudaha dhuleed iyo magacyada waaweyn ee dhulka hoostiisa. Khariidadu waa qayb ka mid ah dadaalada caalamiga ah ee lagu muujiyo sagxadda badda oo dhan sanadka oo warbixin soo saari doona. Khariidada labaad oo ay soo saareen saynisyahanada GNS waxay daaha ka rogeen noocyada qolof ee ka samaysan yahay qaaradda biyuhu jira. Da'da qoloftaas iyo ciladaha waaweyn qolofka qaaradaha oo ah nooca ugu da'da weyn uguna dhumuc weyn uguna dunida oo dhan kana soo baxay casaan oranji jaalle iyo bunni. Inkasta oo qolofta badda oo guud ahaanba ka da'yar tahay buluuga saddexagalka cas ayaa muujinaya halkaas ay ku yaaliin dabkaas. Khariidadan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday goobta Sealandia aan taariikhda tektonika ee kala duwan sida taarikooyinka lagu riixay hoosta kale ee hawsha loo yaqaan hoosaad iyo sida dhaqsaha. Haddaba fikradda Sealandia ayaa markii ugu horeysay soo baxday markii uu professor cilmiga juqraafiyeedka Mareykanka Bruce Lewandowski uu takhasusay ereygan 1995 waxa uu sheegay London Inside Business u sheegay in markii uu damacsanaa ereygan soo doonay in uu qeexo qaarad cusub laakiin magacan asal ahaan waxaa loola jeedaa news oo ka soo gudbiyay jiilaalkii hore ee Gondwana qiyaastii 85 milyan sano. Gondwana waxaa la aasaasay markii qaaradii qadiimka ahayd ee ugu weyneyd dunida Pangaea loo qaybiyay 2 qaybood halkaas oo ay noqotay Laurasia waqooyiga waxayna ku jiray qaaradaas Yurub, Asia iyo waqooyiga Antarctica, South America iyo Australia. Ciidamada juqraafiyiinta waxay sii wadeen inay dib u haweeyaan dhulalka dhulgariirka ee Sealandia waxaana lagu qasbay heerarka hoostiisa kadib 30 milyan ilaa 50 milyan oo sano kadib markii ay ka go'day Gondwana oo ahay taariikhda ugu weyn ee si tartiib ah loogu hoosgalay. Ilaa 2017 saynisyahano waxa ay ku qiimeeyeen Sealandia inay tahay qaarad yar sida Madagascar Island laakiin sida laga soo xirtay Sealandia waxay leedahay dhammaan astaamaha ka dhigaya inay qaataan heerka qaarad. Waxa ay si cad u qeexday xuduudeeda waxayna ku dhex jirtay dhulka weyn 386,000 oo mayl oo laba jibaaran waa 1 milyan oo kiiloomitir oo dhawal ah waxayna ka sareysaa dhulka ku wareegsan badda dhexdeeda. Ugu dambeyntii waxa ay leedahay qoto dheer oo ka qaalisan tan ay ku yaaliin badda weyn. Aad baa mahadsantiin maanta muuqaalkan intaanu